Salaamu calaykum. Haddaa ku riyootid riyada dhexdeeda adigoo hurdaya, sida muuqaalkan TikTok idinka soo sheegay, inkastoo la soo habsaamay muuqaalka. Walaalayaal, haddaa ku riyootid adigoo hurdaya, micnooyin kala duwan ay tilmaamaysaa. Waxaa ka mid ah arrimo adduun iyo aakhiraba ku saabsan. Waxaa kaloo ka mid ah hami Rabbi kaa furfuraya, yacni albaabyo kaa xirnaa, iyo riyooyin kuu rumoobayo. Sidoo kale cadaabo aad ku guuleysanaysid. Maxaa ka mid ah haddaad ku riyootid adigoo hurdaya, caadi ahaan aad tahay qof dulman, qof murugaysan, mise qof dhibaataysan, qof kurbeysan. Rabbi farajuu kuugu bedelayaa. Haddii weliba aad tahay qof duceystay mise Rabbi ku xiran. Haddaa ku riyootid adigoo hurdaya, caadi ahaan aad tahay qof daacad ah, dadka dhaqsi aamino, sirahooga dadku sheego, cadowgaaga qofkaan aan kala aqoonin. Taana waa qafle adduunye, qof oo istiqlaal lagu sameynayo, yacni lagu daneysanayo noqon kartaa. Qaflada labaad waxaa weeye haddaa adiga diinta xaggeedii wax cibaadooyinka Rabbina fare aad ka indho daboolan tahay, waajibkii aan ka soo bixinin. Midaan waa qafle aakhiro, taasaan uga xanuun badan. Waciyaadu billaah tabcan inuu Rabbi cadaabtiisa naga badbaadiyo Ilaah weydiisanaynaa. Marka saddexdaa shay ayaa ugu muhiimsan ayay tilmaamaysaa riyada oo hurdada. Wallaahu yaclam. Wassalaamu calaykum.